number 1 waxa lagu sameeyay aaladii aan lahaay oo si toos ah loo xiray ani daahir wax igama xiri karo iyo wuxuu wato xulufadiisa iyo asaga waxba igama xiri karo waxna igama qaadi karo aniga waxa labada gacmood i qabtay iyo labada lugood Soomaali weyn ayaa aniga ninkaas ii qabatay ayagoona waxba hubsanin laakiin aniga geesi waxa noqday garab waay marka idin leeyahay geesi garab waay waa keligay qaasatan calaashaan ani waa dhaaranay waa idin dhaartay waxa idin dhahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaas waa sax ani qof weyn ahay ilma haysta family haysta qofku waa la qiimeeyaa qofkan baa ku soo weerartay sideen loo arkaa 8 milyan baa ku gashay sideen loo arkaa waa kala waana waayay annaka dhanay waa la iswaayay marka waxa dhacday in 8 milyan oo Soomaali ani labada gacmood ay qabato Soomaaliduna waa dad awood badan ana idin leh magaca Soomaaliyeed aan wataani waa jeclay powerkiis waxa ay qaban karaan aad iyo aad aan waxaan ku iraaday aan ugu riiqaya waayo dad Soomaaliyeed oo waxa ay qabtaan resultigeeda la helay waa wax aad cajiib ah waay marka aniga daahir hadda ka hor baa isku dhacnay waxyaabo isku dayay way jirtaa inuu waxyaabo badan iga xiro laakiin waa la xifaaltay waxa uu uga qaadi waayay 8 milyan ee Soomaalida ah ee waxaan ku dhahay sida qaladka ah wax loo fahansiiyay ee haddeer iga codsanaysa inaan cafiyo waydi cafiyo bila shuruud le ilaahay ba adoomadiisu inta qalad galaan uu cafiyaa marka aniga iyo bila aadan ah qalad ay iga gasheen dhaawac la ii geystay ilmahaygo la dilay second YouTube-yadaydi oo si toos ah loo xiray waxaan ku dhahay TikTok-gayga aan loo aabayeelin don't worry laakiin wali ani ma dhimanin sagala ah qalbiyana waa u joogaa maskaxiyana waa u joogaa body ahaana waa u joogaa marka qofkii shalay ayadoo kaligeed ah waxaas abuurtayna waa ahay waxaan aaminsanahay YouTube-ka iyo TikTok-gaba wax aan anigu curiyay ra'yi aan ku curiyay xoog ani aan leeyahay aan geliyay haddana aan curin kara nanayta marka aad u mahadsantihiin waxa idin leeyahay guuleysta anigana waxaan ku dhahay isaga shaydii baan ahay isla shalay 10 minute kama soo wareegin markuu aniga iga xiray oo kan aan ka soo hadlay awoodda kale aniga aan leeyahay waxa weeye qof wax fahmaya ee wax akhri kara inaan ahay waayo markii meel la iga galo meel kale aan furana bul markuu gubtay bul kalaan aan ololka ka soo qaada asagu wuxuu niyeystay waxa weeye haddii aad meeshan ka xirto way aamusaysaa way isla aamusaysaa ma aamusayani aniga intaan noolahay naftu igu jirto sankayga neefu ka socoto waa rafanayaa baa idin dhaha ninkaasna qof bila aadana uu wax ka qaadi kara ma leh waa bootadiisa iyo dhaqdhaqdiisa ma fahanteen uu dadka ugu cagajugleeyo dadkaan cunaa dadkaan dilaa dadkaasaan yeelaa waxba ma dili karo ilaaha wax dila marka ilmahayga yarka ahna dhoocilo yaryar oo la soo adeejiyay naaga xunxun oo waxaan ku iri tax inta lagu dhex dhuuntay la sugay meesha lagu baaba'ay kadibna ilmo yar lagu dhigay gabadhaydana way bugsan doontaa waana loo aarayaa gabadhayda looma oynayo inta meel soo fariistaan uma oynayo gabaran dhalay gabadhayda waa loo aarayaa oo waliba waxaan ku dhahay aragti dheer iyo aragti gaaban baa aan ugu aari doono haddii ilaahay idmo waana ku socon kartaa nintiina kale waayahay sandheer oday weynaa baa tahay siida hadalka kolle isaga waxaan ugu yeernay Soomaali inay cafiskaas u fidisay tirwaan cafiyay Soomaalina ay ka khaldanayd arintiina ay meesha ku dambeysay yaraadkeed siida sandheer مودي صار دغو horta saga la soo dhawow adeeray ilaahay mooyaane cid wax ka qaadi karta male horta walaa lagu xiri karin waa lagu soo weerari karin laahi billaahi tallaahi baan waxba laga qaadi karin waxna laga sugo uu sameyn karin waa un afkaas iyo baqbaq iyo caydaas iyo dharraq mooyaane inta saga loo tago horta waxba laga ka qaadi maayo xiritaan iska dhaafay shimbir xitaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wallahi ku xiri karin xitaa ay wax kale ka sheekeynayaan hadday lacag noqoto hadday af noqoto يا حبنا حتى والله بالله تالله وابل اسكو رغم ايغو هدا انتي قبر فولay ka hadlayeen laakiin anagu ma hadlayno anaga hadii gabarna gala xumeeyo ama gabarna taabto ma ba hadalnaba
magaca ilaahay annagu gabadha 10 nin haddii la dilo waaba laga yaabaa inaan ka sabana laakiin gabar haddii la xumeeyo ama noola dhawaado qabiilo dhan baaba isku rogmaba dab marka annagu halkaas gabar taanada ah waxba lama yeeli karo lamana xiri karo waxna lama samayn karo oo magaca ilaahay ah intaas horta bal nabdhe tan labaad ninkan nahaabka ah wala waa inaad haysaan ciwaankan baa hadda laga ribooday ciwaankana Soomaali weyn oo wax ma hubsata ah ayaa kugu yaacday haddana annagu waxaan qolkan u soo furnay Soomaali weyn waa inay 8 milyankii ay gaarsiiyaan 8 milyan oo weerartay waa 8 milyan ciwaankan hadda la gaarsiiyay Soomaali weynta waxaan u soo furnay meeshan Soomaali weyn inay qaldanaayeen oo gabadhaas ay ka qaldanaayeen oo wix been ahayd ee beentii ay tiri waxan waa been ay beentii ay ninkii rumaysteen lacagta raadinayay ku qaraabanayay gabadha maskiinta aan waxba lagu samaynin ee feega ahayd ee 2019 video aan aniga aan daawaday ee baltago laga soo diray beenta ku qaraabanayay baan Soomaali weyn waxaan u sheegaynaa in ay qalad ahayd waxan intaas qolka soo furnay taaraha aan ka dhalanay oo direedna salfudeedka iyo nacarada iyo baqtiga ayaga ugu badnaa wali wax ku ribooday oo ku direen oo daan asu futada u dhaqayay iyo qolada abtiga ku ah oo daroodka ah ayaa u badnaa hadda marka anagu waxaan qolka u soo furnay in gabadhaasi loo muujiyo garab istaag anagu dan suranahay hadee banaankaas ama fadhinaaba gabadhaanada dushaas aan ka waardiyeysanaynaa wax u soo dhawaan kara male gurigeeda gaar baan ka haynaa ayada gaar baan ka haynaa magaca ilaahay baan ku gaar baan ka haynaaye gabadhaasi Soomaali weynay intii ku qaldantay hadda weydin cafisay fulowdiina u soo celiya qolkii na waan soo celinayna hadduu alla idmo hawada laga saaray falow garaya gabadha garab istaagna oo muujiya oo qaladii aad ka dhalatay waa qaar ku caahayo ayaga lafdigooda waxaa leeyahay gabadhaas niyow gabadhaada nooga hara annaga yahuwiya maxaa daarodow nakin dhex dhigay annaga yahuwiya sayne maxaa ay ka daarood wax geen meeshan ka soo gasheen sandheero inaa hadalku dhaho abo hadalkaaga adoo watay inaa ku dhex kala ma fiicna aniga caawa aniga family-ga hooyaday ay ka dhalatay oo markay waxaan ku iraaday hooyaday tahay gabar dhulbahanta ah qoladaasaaba ugu daranba qoladaasaa ugu daran oo life aniga hadda ii soo wacaysa aniga ma dhulbahantaan is haysanaa su-aasha koowaad aniga ma dhulbahantaan la dagaalsanahay waa maya aniga dhulbahanta waa ree abtigay waa naaskii aan nuugay ma rabo inaan hadal xun dhaho laakiin mid baa idin farayaa aniga ammaan hala isiiyo dhulbahantow iga leexo aniga waa ogahay dhulbahanta meesha igu gashay daraawiishay meesha igu gashay waa ogahay ha u qaban sagalay maya ree abtigay aniga waxay igu haystaan calanka dhig calanka Somaliland dhig ma nin baa walaalkii laga jaraa aniga Somaliland way la dhalatay marka runta idin sheego ina wax laba dadadaye Somaliland waa dawlad direed waxa way waa ilma adeeraday ma qof baa qofkiisa laga jaraa maxaa igu haysataan waa sax okay sagalay horta mid baan ku darsanayaa arinta arinta mid baan ku darsanayaa horta kelmad baan ku darsanayaa Sandheero madaxweyne horta xaqiiqda waxa weeyaan dadka ku balooga iyo ku report gareeyay waa run waxa u badan beesha aynu ka dhalanay direed haddaba sagal anigu in badan YouTube-ka baan ku arkaa Facebook-ga TikTok-ga waa sheekadani markay bilaabantay horta waxa la yiri ooda dhacmeed siday u kala sareeyeen baa loo kala guraa daahir calasow ama candha calasow maaha markii koowaad ee gabadhan inala dhalatay horta sagal waxa uu daahir markuu arko qofka weynagii ogeyn deeq geesood soo halkaa ma joogo nin daarooda maaha deeq loocow soo deeq geesood nin daarooda maaha uu dabagalay waadigii ogaa horta gabadhan maaha markii koowaad maaha markii labaad maaha markii saddexaad ee sagal uu daahir calasow dabagalay weynagii ogeyn assassinationkii hore u suurtageli waay waarnimo iyo how direed
daahir calasow laftiisa imisaynu ku joognaa soo kun maaha kunkaasaynu iminka qolkiisii report garayn karnaa report iyo blog haddaad diray doonaysaan inaad caawa aarsataan oynu gabadheennii u aarno sagal qolka magaca daahir calasow qof waloo direedow magaciisa report iyo blog un saara sidii doorkii daaroodba soo kuwii magaciisii hore ka cunay magacanna daahir calasow mid keliyay inanteenu caawa ku seexanaysaa inanta direed iyo inanka direedow inanka direed iyo inanta direedee dhiig lahow report iyo blog caawa magaca daahir calasow magaciisa xataa hadduu offline yahay researchkaad ku taabanaysaan researchka fiidiyowga hal fiidiyow maaha magaciisa maaha hal fiidiyow ka ugu horeeya uu biinka taabtay ka ugu horeeya biinka u saaran report blog bes haddaba midaan idiin sheego haddaynu dirnahay horta reerka surre anagu markaanu isaaqnahay dir oo dhan labada reereen ugu jecelnahay waa biyamaal iyo surre inantanna waxaa lagu eryanayaa xaflad wal oo fanaaniinta reer Somaliland iyadaa u qabata qabanqaabisa iyadaa xafladaha u dhigta inta gabadha lagu eryanayaa gabadhaasi wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanay wax kala ahayn sheekadii qabar zoogani inantii dambe bistay weeyaan sagal inanta daarood horta midaan kuu sheego ninkan qolka iskale يا ولا هبر وذاك يا هذيك معها لا اللي شقيه اوكي aan mid ku sheego in sagalay in adeer ninkan qolka iska laba daarood baa dhalay ana daarood baa dhalay adigana horta weliga abti waxa kaaga wanaagsan in adeer waxa la igu haystay in adeer warkaaga macaan ma dhexgaline aniga waxa weeye fiiri dhagahan ugu ridaya aniga dhagaha waxa reer abtigay ugu ridaya aniga nimanka isaaq ee dawladda ah ee meesha xaadhay ee waxaan ku iri sanka saa u taagay ee kibray waa rag aniga ila dhashay horta laabta haydi ka gasho baashu haydi ka taagto inay dawlad direed tahay horta aqoonsada maxaa direeda gabadh suraaho reer ceeri gaaba baan haydhay yes ceeri gaabu idagayso in adeer markii taa laga soo tago aniga hooyaday gabar habar yoonisa Muuse Ismaaciila waxaan ku dhahay reer awla dhashay horta naagtaanu naag dhinac walba isaaq kala dhalatay inay taa horta aqoonsanaada aniga iga fogaada aniga waxa weeye ma jeceli hadeer adi xataa ma jeceli inaa magac daarood xataa wax la yiraahdo laakiin meesha waxba ku jira aniga naagaha waxaan ku iri hadda ka hor baa naag sac ah aan ka dhigay aniga naag sac ah oo cagaha dhaqan baan aan ka dhigay ma rabo aniga naag dambe oo waxaan ku iri safan leh inaan aan ka dhiga ma rabo waxaan arkayay waan ku soo qaadan karay laakiin kuma soo qaadanayo naag dhahaysa annaga naagtan maanan dhalin annagu caasi ma dhalno naaya aniga caasi marka ileedahay maaday dhalo naasi siiyay imaada siintee mideeda kale ragga ka qadeeya dhulbahante oo waxaan ku yiri ka kaadiya oo magaalada Laas Caanood leh baa aniga i dhalay dhagaha ku shuba hataan kuugu shubayaanaya naag waxaan ku dhahay Maxamuud Garaado Jaamac Siyaado Cali Maxamuud oo sanka ka kaadida oo caawa Laas Caanood dhixirta aniga i dhashay qalbiga ku shubo tan waa ta dhalmada marka aad leedahay anagu kumaanan dhalin ma dhalma aniga ka raba adiga يا مدل ما أنا كهربا مدة كله علنك إساق أنا وطاق كل منايا إساق أنا وطاق كل منايا ثم والله حتى يدي شيء جايا أنا إساق ورق إلى الشيء مالنا مال إدلا وقت جماعي وصح سجلي وصح ولا لا وصح ولا لا مالنا لا تقال ما أنت واحد يكون يديهن يا دارود كود يديه وعلنك سوماليلاند إيه كايب لا إن هذا وهم أبتياد الداية أبتياد وهوية أبتياد مرة بينا واحد كنت بلاكي إذا حشاضة أبتياد وإذا حشاض أبتياد وإذا حشاض ثيري وحلا يري
qofka jecesha aygiisana waa la jeclaadaa miyaysan ahayn يا ما أبتيض عنا ور وأبتيض مكو شيغا سغل ور مكو شيغا سغلي tugabo maya وريا سغل وريا سغل ما مقشا راني ابتي abti sacad ma aha daahir sacad ma aha waa midkaan كذا إلهي أنكم قداش أنت أفاي ميك ما حد يصدق هنا أدير يقول حيرتي هنا أدير يا إلهي قد هنا لو كبيري هذا أبتياش ودا ما قليسا أفاي كمان أبتياش ودا كله حاجة بدي maya horta sagalay in adeer annaga inantayadii baatay sug afayeenkana mid baan u sheegayaa afayeenka inanka qol kale inankeenni weeyaan waa deeq qaloocow waa ninka keligii dagaalama isaga iyo sandheere waa labada nin waxa Axmed baa soo raaca war madir kala dagaalanta runta insu sheegno qaar isaaq bay iska noqdaan baroon xarfa halkan uu abtiyaashi dhundhunkanaya waa deeq qaloocow iyo ninka sandheere labada nin ee dir laga dilo runta marka la isu sheego والله بالله تعالى نوكا مريحان با نصبه دغال لا wax ka yaqaan dandamada wax ka yaqaan والله wax ka نوكا مريحان والله أفايين بالموت قال المادر موت نبدا قولك صوفر وقعد على والله دلين بي قلت ku dhagan maalin kasta gabar ay أفايينو على وكل دريمنا أنت دريميسيد midka xuka daahir diini iyo gurcaal iyo daahir diini فيري دغيسو ninka la yiraahdo horta bal daahir diini gabadha jacayl soo dirayaaye block fotada ka gali fiiri horta mid baa idin sheegaya aniga waxa la igu yiri aygu dhalay daahir diini qolkan baad block ka saartaan ibn xaaraan ku dhalay fotada block ka gali حتى هو أنا ما سنة بدل magacayga block baan saaray madaxweynaha sandheero wallahi block كجدبة أنا وين دار على سو نينو ناقي أنا ما تشعلي ولي أنا ما ناقين نرجع أصلاقي دايرو إسكبح نيو يقبض كله warwarka kale hela Faisal Nasiya أنا Faisal Nasiya أنا نسوق Garcia warka aan kala hadlo bal فيصل وقاو أنا روح كذا سجل وكذا سيدي عبد الله كسر فيصل هذا فيصل كسر سيدي هنا ما يسرع ده يموتكي قاعد كومنتي قبل إنه تدرسين على يابا وان وقت وهاي وعادي ودي كقاعد فيصل وكقاعد زين ما كنت جينا وكسر عني يعني موتك كور ما اوغا موتك ماشي بالكاga موتك meel kale laga galaa mushak موتك kor muudka sawirkaaga aad ku dhufanaysaa muudka halkaasaad ka soo gelaysaa ilmaaday rayaal diray 1250 baynu ku joognaa magaca daahir cali sow searchingka ku taabta waa report way maqashaa deeqo iyo dhago وكادي دغو يكادي مدير قلا بلين مود قلا سغل walaal waa ku salaamay sharaf iyo karaamo in adeer horta deeqow toobigan yaa laga bixin gabadha sagala gar iyo gardaro ayadoo keligeeda oo meel gaara joogta abtiyaasheed haday caayayso iyo haday amaanayso ha wada hadlaan inaga toobig baan ku soconay toobigaan ku soconno intaasaan idin lahaa caawadan muudkeena iga qaada muudkii baa waxa la yiraahdo igu dhigay inta aashagtay weeye niyo toobig abti waa beer gabadhaas abtiyaasheed ayadaa la garnaqsanaysa haddii waxa la yiraahdo ay caayayso iyo haddii amaanayso meel gaara isla tegayaan toobiga inagu waxaynu u taaganahay kaliya inanteena seen u difaacan lahayn marka sharaftu waxay ku dhantahay hadalka waa idin soo gaabinayaa dhalinyartii baa joogta marka sagalay haddaad maqasho codkayga haddaanad muud ku jirin oo aad codkayga ku maqlana Faisal gar iyo gardaro abtiyaasha qofna yuuna kula xaman qofna yuuna kula caayin qofna yuuna wax kula oran yaa toobigu ka qaldamin walaal
وصح ما أنا وحن في جنائم قطعي مركا عن ليا أبتيال دقها كشبتا أبتي بان ليا في أنا وحن ديدا يا أنا جو هل قلدا أما هل إري أو عايا أنا له إنه هو يدا يساو دقيستو وقلبي وحكي جارو مركا وحن صح ناس شرف لا كنا لي وحن لي waxaan u sheegayaa qolaa waxay ugu haysataa naagtan annaga hana soo raacda haddaan annagu dhalnay calanka ha turko laakiin ma dhacaysa waxaas anaa hadda kuu sheegaya ma ku raacayaani marka waxa weeye hadda faysalow midna caawa halkaasayna idinka sheegaya 1400 oo qof baynu ku joognaayo direed imika laga bilaabo deeqa looco ma ninbaa ka afweyn deeqa looco ma ninbaa ka jambal badan qol direed baa loo baahnaa diray qol kale ma tegi kartaan diray cid kale gifti uma diri kartaan habeen iyo maalinba qalooco qolkiisaas un baynu isugu imanaynaa haddaynu dirta jabuutinay haddaynu dirta somalilandnay haddaynu dirta etoobiyanay haddaynu dirta kenyanay qolkeenu waa qolka qalooco marka inaad deeq waa nin jabhada waa nin muddo badan soo dagaalamayay waa fiicanta anigu ku taageersanahay waa nin aan aad uga dambeeyo waa afhayeenkaygii anna abwaankiisii baan ahay sharaf iyo karaamo dhammaanna waxa la yidhaahdo dhammaan ragga meesha jooga waxaan arkaynin oo hoos fadhiya saaxiibkay cabdalle mustaf cabdihaaha fanaankii dhammaan waa idin salaamayaa afhayeenka iyo sandheere iyo egas rabsho intaas markaa walaalayaal waxa weeye horta anigu habeenkii ugu horreysay inanta qolkeeda aan soo qabsaday waxaan idhi walaal qaali adigoo qof macnaha iyadoo qof loo doodayo yaan qof la dulmin sababtu waxay ahayd aniga muhiimaddeedu waxay ahayd haddaad aragto qof calooshu ka soo laalaado ilaa aad qofkii kala aragto lama xukumo marka wixii waynu aragnay hadda hadal iyo dhammaan sharaftii iyo cimaamaddii Soomaali baa horta kaa qaaday qabiil kaama qaadin qofna kaama qaadin horta ogow runtaan kuu sheegaya anugu Soomaalidii kaa qaaday baana kuu soo celinaysa intii lagaa qaaday iyo intii ku ribooday 3 laabkeed baana kuu soo noqonaysa gabar sharaf labaa tahay gabar afgaaban baa tahay gabar aan dadka qabeeyil iyo waxa la yiraahdo sagal Soomaali ilaahay baa igu og gabadha goortaan daawan jiray inaan suraad sheegaysaa xataa inaan duro aqoon haddana waxay noqotay gabar in adeertay marka waxa soo dhan marka laga yimaado sharaftii iyo Soomaalinimadii iyo meeqaamkii aad lahayd inagu Soomaali haddaynu nahay waxoogaa weynu yara degdegnaa sababta inuu degdegnana waxay tahay gabdhaha waxay naga yaalaan meel qaaliya marka inaan walaashay baa tahay dad sharaf lana waad ka soo jeedaa dad sharaf lana waa ku dhaleen labada reerka aad ka dhalatayna waa reer sharaf leh reerka waxa la yiraahdo hooyada tahayna waa reer sharaf leh anigu midna waxba ka sheegi maayo laakiin muhiimaddu waxay tahay nin odayaan ahay nin abwaan ahay waa jirtaa marmar aan dhooqaysto laakiin ma hadda waxaan u hadlayaa sida odaytinimada ah marka in adeer sharaf iyo karaamo annaga dhinacayaga cid kaama soo dhacayso cidina kuma imaan karto wixii khalada oo Soomaali ku geysatana haddaan anigu social media fiiriyay adiga hadda madaxa lagugu sitaa markii hore khalada laga dhaadhiciyay dadka marka waxa la yiraahdo aan iska dhamaysto marka idinka degay in yar iga raali ahaada nuudkiiba waa qolka deeq caawiga caraysay aan umaleeyaa ma garanay marka waxa la yiraahdo in adeer sharaf iyo karaamo sagalay aad baan adeer waxa la yiraahdo kugu hambalyeynaya cidina wax kuma yeeli karto inantaa yare aan abtiga u ahayna allaha caafiyo wixiina waynu ka daba tegaynaa Kenyana reerka aad ku dhalayna waxa la yiraahdaa awood bay ku leeyihiin reerka aad ka soo ka dhalatayna awood bay ku leeyihiin waxaana waa ka daba tegaynaa daahir iyo dadkan aad share out ka u sameeynaysan iyo kan waxa la yiraahdo qabiilkiisa la isku haysta reer khalafka iyo Umar Maxamuud kuwa hore dayriyeen waxa bashar out u sameeyna marka inaad macaan saasa inoo ballana arrinkiina ku socda toobigana waxa isku daydaan idinka oo cid difaacaya cid kale oo Soomaaliyeed ha aflagaadiinina nimayo nin oday